siyaasi Cabdilaahi Axmed Maxamed oo kamid ah hoggaanka xisbiga mucaaradka wadani oo maanta hadlay telefishinka Universal ayaa xukuumadda Somaliland ku canaantay inay ka gaabisay doorkeedii siyaasadeed ee ku aadanaa dagaalka tukaraq ee u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka Puntland. nasiib darro ciidamada siyaasadda hogaaminaysa ee ma taqaana hawlgelinaysa ma aha siyaasad runtii ku jahaysan aqoon iyo cilmi iyo wada tashi. waxaad ka garanaysaa qaab socodka dagaalku waa laba qaybood. qayb waa qaybta qoriga ninka dagaalamaya jiid hore jooga ee mataqaana qaranka difaacaya uu ku jiro. qaybina waa qayb siyaasadeed. qaybta qoriga de si fiican bay ciidamadaasi ay uga muuqdeen ugana shaqeeyeen una difaaceen dalka, laakiin halka kaalinteedii ka soo bixi weyday ee lagu bariiqday waxay noqotay qaybtii siyaasadda. waxaad moodaa dagaalka isaga ah in aan jumhuuriyadda si la rabay uga soo bixin moodaa, laakiin dagaalkii qoriga dee ciidamadu si fiican bay ka yeeleen oo iyagu arrintaa si wanaagsan bay ka yeeleen. dadkaas reer sool tabasho badan baa ku jirta. tabashada ku jirta iyo cabashooyinka ku jira waxa weeye kuwo gaadhsiisan heer in dalka intiisa kale ay dib uga dhaceen. sababta keentay sool iyo sanaag inay dalka dib uga dhacaan waxa weeye gacan bidxeyntii xukuumadihii jira weeye. xukuumaddan hadda jirtaana wadadii bay martay. hadday aragti taa ka duwan la iman lahayd oo ay dhulkaa cabanayay dadkaa cabanayay ay aragti keeni lahayd, ilaan madaxweynuhu markuu dalka qabsado waa inuu aragti la yimaadaa. siyaasi Cabdilaahi ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay kootada haweenka iyo beelaha gabooye ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ay maalintii Khamiistii ansixiyeen golaha wasiirada ee xukuumadda Somaliland. arrinka kootada de muddo badan soo jiitamayay waa arrin loo baahnaa beelaha laga tira badan yahay iyo haweenka oo runtii sidii loo rabay uga soo bixi waayay golayaasha. arrimahan qabyaaladda jira aawadood xisbi ahaan de waanu aaminsaneen in la sameeyo, laakiin kootadu sideedaba marka la sameynayo de waxaa lagu sameeyaa statistica la sameeyayo dadka waxaa la yidhaahdaa dadka kootada loo xidhaya xaggee degan yihiin, intay tiradooda yihiin. ilan baahidii waa la gartay sax kooto in la qabto, laakiin waa in dadka laga xisaabtamayo. dadka gaboyaha waxaad moodaa inay dee saddex aada ugu yartahay. marka annaga waxaanu qabnaa halkaa gaboodfal baa ku jira. gabooyaha dad aada u cabanayay oo runtii ka cabanayay hawsha maanta ay soo baxaysana haddii yaraanta lagu bilaabo de waxay noqonaysaa inay weligeed inay kasii yaraato mooy aan la kordhin karin bay u muuqataa. Mukhtar Ismaaciil Cali, telefishinka Universal, Hargeysa.